barasaabka cusub ee loo soo magacaabay gobolka Gabiley mudane Maxamed Ismaan Axmed Indhabalac ayaa xilkii kala wareegay barasaabkii hore ee gobolka Gabiley Maxamed Cali Saleebaan Rabaax xafladan xil wareejinta ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Somaliland wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta Somaliland iyo madax kale oo fara badan waxaana hadaladoodii kamid ahaa xafladda waa ka soo habsaamay oo goor uu ku qasanayo ninka la yiraahdo barasaabkii Maxamed Rabaax يعني وحان جعلان لها إنه كما ويراه الدم وبيكتو وحفلته وليشيء بيش صدق ليلة وحورا لي هاي هذه وكفل يا صاحبكي رماح وقدومي لحظة وبصوا مرايا بنو محمد iyo wuxuu soo dhaweey saaxiibkii iyo hogaanka tusaale uu isaga tusaaleeyo waxa ka yaala uu sheego ka fulayay hasan yeeshay waxa moodaa inuu u baahan galiyay waxaa waxa bisha saddexdeeda sameyn doonto qarankana eegi doono maxad uga codsanaysaa jamhuuriyadda Soomaaliland inuu markii ugu horeysay barasaab u dalacsiyay barasaab ku xigeen waxaan halkan ku soo dhaweynaa haddana aan idiga gudoomaynaa sida fiican ee aad soo galgisay barasaabka horena aad sii sawootiyaysan aad iyo aad ugu soo dhaweynaa waan idiga aqbalay soo dhaweynta aniga duwaba waxaan leenahay barasaab Rabaax aad baan ugu mahadinaynaa wax qabadkii faraha badnaa uu degmada si wajaale ka soo qabtay gudoomiyaha cusubna waxaan leenahay intaan Rabaax ka aragnay iyo ka badan ayaan faafilaynaa barasaabka horena waxaan leenahay waan ku sii ducaynaa barasaabka cusubna waxaan leenahay soo dhawow waxaan leenahay gobolka gobol si badan oo ilaahay tabiicada ku kaleeyay waxaan leenahay xaaladina muqaayadii waddanka deegaanka waxaan halkan u hambalyeynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland xilka qaadista uu ugu sameeyay waa waajib qaran oo uu leeyahay inuu mas'uuliyaddiisa ku guto maalin walba oo Muuse hadlayo madaxweynuhu hadlayo wuxuu yiraahdaa sharciga shaqeynaya Muuse wartaanu sharciga ku shaqeeyo waa sharciga barasaabada ayaa ku shaqeeya sharciga ku shaqeeya ilaa sameeyay maaha waxa wajahana ka jiray baan idin sheegaya marka la qaadayo cashuur waxa qaadi karo xisaabiyaha waxa qaadi karo wasaaradda maaliyadda iyo dawladda hoose waxa ka jira rag wada samaystay oo lacag qaada waan xaraamiyay ummadan reer Gabiley waxa la yiraahdaa Jibriil Abukar baa meesha cuna ummad kala cuntaa way ku dulmeeyeen dadka deegaanka dadba ku dulnool وديكو العبية سيدا صاحل ومفهومين كل مجا كوة مركا مسلمين كنطفتو شرعيك كنطفتها أيها يجي نلو مقلي مركا وحلايا ما هدولين باطلوا وبانيادا كنتينيا فريمي بطايا من الحويلة وتلاي أنا بصدح ميران بان أيام وحكا وريا رهانتي وحاوه وريا إن أيام غادتان نمد قليلة وأبوه الرئيسو وهلك قفك بني آدم كاهي وصرف كلها والمجيء على بحرين ريل عيلة وين وهاي هبر لمان بينبوها بين كستا نحلين تقوي رأس مالان هيستا وحوي ينبري بالإسكوجين خاتيان برو كتاجن يا هنا ندخل دارين نجتوتي دجال oo naga tootiyay dagaalku abaaru wata naga tootiyay aqoon wata naga tootiyay dawlad la'aan wata naga tootiyay waa yaale Maxamed Cali ayaa la jooqle TV-ga RTN gobolka Gabiley